qaybta labaad imtixaanka dowladda sanadkii 2021 wuxuu ahaa match the theorem in the column A with the suitable description in column B. Erayadan ku jira column A-ga ku aadi qeexitaanka ku habboon ee ku jira column B-ga. kan koowaad waxaa fertilization bacrimin. qeexitaan ku habboon waxaa waaye union of male gamete sperma and female gamete to form a zygote, inay midoobaan unug tarmeedyada ragga iyo unug tarmeedyada dhediga inay see u sameeyaan unug bacrinsan. kan labaad waxaa waaye mutation isbedel laxleed. isagana waxaa ku habboon sudden change isbedel degdeg ah oo ama error qalad kaasoo ka dhaca in the genetic materials waxyaabaha dhaxalka. kan saddexaad waxaa waaye eutrophication. waxaa ku habboon excessive nutrients nafaqo dheeraad ah in the aquatic ecosystem ee ka jira geyiga that destroys kaasoo burburinaya habitat deegaanka of fish ee malaya. midka saddexaad waxaa waaye foramen magnum. waa duleel yar oo laga helo qalfoofta madaxda. foramen magnum waxaa ku habboon iyadana qeexitaan ku habboon waxaa waaye large oval opening that locates at the base of a human skull. kan shanaad waxaa waaye transcription iyadana waxaa ku habboon members of beer homologous chromosomes do not separate. tan toddobaad oo insulin ah waxaa ku habboon lowers the level of glucose when it becomes rise above normal. hypothalamus waxaa ku habboon qeexitaan ku habboon waxaa waaye controls the output of hormone from pituitary gland. waxay kontrolaan dhammaan hormoonada kasoo baxa qanjir maskaxeedka. taminta sagaalaad myofibriliska waxaa ku habboon iyadana bundles waaye treat like structures found in skeletal muscles. genome waxaa ku habboon iyadana organisms complex set of genetic material. waxaan rajeynaya inaa fahanteen. haddaa mar kale hal mar nambarada soo kormaro waa 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 sidaas isugu xigi doonaan. qaybta xigto oo qayb saddexaad ah waxaa lagu leeyahay use isticmaal the informations in the box. akhbaartan yarta kugu jirto boxka meeradan box kugu jiro isticmaal ee hooseeyo si ay u buuxiso meelaha bannaan. to fill the gaps. the largest part of brain is cerebrum. qaybta ugu weyn ee maskaxda waa cerebrum. 2 low growth hormone. koriisho hormoonka hadduu yaraado hormoon koriinshiyaha hadduu yaraado kaas wuxuu sababa condition xaalad revertaas waxaa loo qeexaa xaaladaas dwarfism waxaa loo yaqaano dhicis waxaa u naqaana isticmaala ereygaas loo isticmaala. the type of sugar that constitute the DNA is deoxyribose. nooca sokorta ee ku jirto DNA da waxaa loo yaqaanaa deoxyribose ayaa loo yaqaanaa. the outmost layer lakabka sare ee human skinka scolid waxaa loo yaqaanaa epidermis. lakab duleed ayaa la yihahdaa. in a food chain dabarka cuntada markaa ka hadleyno trophic level of grazing animals xayawaanada daaqa can be categorized as waxaa loo soo qori karaa primary consumer inay yihiin gortayaasha koowaad consumer laga rabaa meeshaas. su-aasha midda lixaad ee meelaha banaanbuuxiga ah waa light sensitive cells unugyada dareema iftiinka that are excited by kuwaasoo markaas low levels of light ee qabta iftiinka daciifka waxaa la yihahdaa rodis. tan toddobaad the thick filamentous protein miiqyada borotiinka ee adag that constitute kaasoo ay ka kooban yihiin skeletal muscle fiberska dumooyinka murqaha lafaha ku dhegan waxaa la yihahdaa myosin. tan sideedaad the bony dabarka that links kaasoo isku xira amino acids inay protein ee borotiinka ay leeyihiin iskole waxaa loo yaqaanaa peptide bond dabarada ay isku qabsadaan amino acidyada. the large scale study daraasaynta weyn and cataloging of the structure and function of proteins in the human body iskole waxaa loo yaqaanaa proteomics. the upper limbs are connected to
to the axial skeleton by pectoral girdle laga rabaa meeshaasne